maxay tahay khiyaanada guurka khiyaanada ku salaysan maxaa keeno maxaase sababo maxaa kalifi karo maxaa keeno maxay tahay asxaabay guurka khiyaanada ku salaysan micnahaas ma ii sheegi kartiin oo ma taqaaniin ninka muxuu u khiyaanayaa gabadha oo guursanayo ama mustaqbalkooda la wadaagayo hadduusan dan ka lahayn moo sheego. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتيدا دمانتين وايدا ودا السلامي ميل والبا أدونك الدعالديسا أكاكالا جوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين إذا الله يهي سورة دوادا وظهور ونكسن ومعلم عصب iyo فيديو عصب ما شاء الله تبارك الله دمانتين أدين سلامايا ميل والبا أدونك الدعالديسا أكاودا جوكتان channelka iga daawanayso waa channelkiina aniga maamulo leen ka ahay idinka ayaa iskale aniga maamulo leen ka ahay kusoo dhawow waan ku leeyahay please adigoo raaliya oo mahadsan subscribe noode like iyo share comment dhiirigelintana waa xaqiina wax walba oo fikrada aan noo heesana qaybta comment-ga nagula qaybso waad ku mahadsan tahay daawashada ay daawanayso waad ku mahadsan tahay everything wax walba aad noo sameysay comment aad noo soo qortay daawasho aad daawatay hal maalinba saacadaba Allah ka dhigay thank you aan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay daawashadaada aad ku quruxda badan leh dhamaantiin waa idin wada salaamay soo dhawaada marka waa anigoo ah Shamsa Cadee ya magac maskiin ma ka aha maalin moole oo qabtaa ma fahanteen ya شمس عدي أي هرتاجن مال مولى أقطع صورة دوادا صحابي إذن كان صورة دوية لاكت إشارت كومنتيجا لرجلين تنوا حقينا وحي فكرة ذا هسا وحي برنامج هسا وحول بنا نلاقي في صدا هوس قبت كومنتيجا نوغرب واتكم مع سنتاي صورة دوادا ما أنتم حينين سيدا وقصة شعير هذانا جور لبقف أو إسودا قبي أو مال ودا دجنا أما ودا نولا أما هوي ودا دجنا ama mustaqbalkooda saas ku faraxsana gabadha ayaa wax jecleedaan dhihi karaa gabadha ayaa xoog wax u jecleed gabadha ayaa daacad ahayd gabadha ayaa wax jecleed gabadhana ayaa daacad ahayd ninka inkastoo lug u laabneed ninka lug ayaa u laabneed maxay ugu laabneed lugta maxay tahay khiyaanada iyo sirta uu watay ama ay ka dambeysay gabadhan way jeclaatay waa la wada sheekaystay waa la wada muddo la wada socday muddo ayaa jaceelka la soo dhisay muddo ayaa la wada joogay dadku waxay ku nool yihiin Europe ya wadamadan ay wada joogaan Europe meel kamid ah ay ku wada nool yihiin waa wiilay gabar ah maalmaha kamid ah ayaa meel la isku bartay la isku bartay meeshii yaa sheeko iyo jaceyl laga amba qaaday hooy ayaa loo yagleeday guri ayaa la yeeshay hooy ayaa la wada galay guri ayaa la wada yeeshay farxad iyo reereen ninka gabadha muxuu ku khiyaanay muxuu si ku sameeyay ninkan xaas kale ayuu lahaa ayuu uga soo tagtay Soomaaliya xaas kale ayuu lahaa wuxuu uga soo tagtay Soomaaliya xaaska kale tood xaaskiisa kale muus u sheegin inuu meeshan oo joogo oo ku guursaday oo naag ku qabo mooso marnaba ma oonsa sheeginbo naagan qaba ee abaayo waan kala fognahay waan kala maqanahay naagan guursaday ugu ma oosa dhihin tan oo guursaday oo la joogane wuu khiyaanaba asiga wax jeceelaba uma qabo ilmo kale iyo naag ayaa ka maqan kuwaas ayaa u hanqal taagaya kuwaas ayuu u maqnaa oo ku maqan yahay laakiin naagtan waxay ahayd magaalada ku joog oo ku noolaa ya nino shaqadaasna waa taqiinay ninkan waxay ka ahayd naagtan way shaqaysataa guriga degan tahay waxbay haysataa noloshaadu way ku kaafin kartaa waxa adiga ku soo galane ilmahaada waa u dirsan kartaa afaanteen samaha gabadhan way iska shaqaysan jirtay abaay saana ahay abo ya ana ku hay waxa rabta abo maxaa u baahantahay familkiisa ma soo baran ehelkiisa ma baran walaalihiisa ma baran asxaabtiisa ma soo baran maxaa kilifay qofka aan mustaqbal la yeelo rabto gabaray qofka aan nolosha la qaybsanayso ama qofka aan mustaqbal la yeelo rabto dan markuu ka leeyahay guurba ka soo tag ya guurba xagga noo dhig guurba ka soo tag markii qofkan aad isjeceshihiin oo aad rabtaan inaad isguursataan igaraali noqda qofkan
markii aad rabto inaad isguursataan oo aad jeceshihiin first idinkoo jaceelka jilaayo oo ku dhahaya familkeyga ayaan ku barayaa afaanteen samaha marka kow idinkoo jaceelka wada jilaayo oo dad jacayl wada jilaaya ah oo wili aana guurkii loo dhaadhicin oo guri aan la wada tegin ya ama hoy aana la wada yeelanin oo ku dhahaya abaayo familkeyga ayaan ku barayaa haddaana dhammaan ku barin qeybaan ku barayaa walaashayaan ku barayaa walaalkayaan ku barayaa xabadeeda waaye ya waa xabadaan mar dhow isku dhegsan rabno insha allah sidaan rajeynayno ilaahay noo kaso ama ilaahay noogu talagalo xabadan waa xabadan guursa rabo ayuu dhahayaa ma ahane markaa aamusaay ha gabdhihiinaan dhahayo nin dad lama rabo aniga nin keligiisaan u baahanahay horta nin keligiis ma jiro ninkan hooyaa dhashay walaaluu la dhashay hooyaa soo korisay aabaa soo korsaday reeroo leeyahay familoo leeyahay ya oo wiilkoodu uu yahay adiga markaa wiil ninka ciddiisa aan nacdo ama hooyadiisa aan nacdo aad tira aniga ninkii qabaha naa reerba ma lahane asiga unbaa haystaa reerkiisa barashadiisa maxaan ku falayaa taas way kaaga qaldan taho waxay kaaga qaldan tahay ninkan britol wax walba dhici karo wax walbo ayaa dhici karo abaayo wax walbo ku xisaabtan horta ninkan kaligiis muxuu ku tarayaa nin aan dad lahayn oo walaal lahayn oo hooyo la socon oo aabba lahayn muxuu ku tarayaa adiga mi isweydiisay muxuu ku tari karaa waa waxbane muhiimadda waxay tahay ninka kuu baahan ama mustaqbalkaaga rabo ama aayatiin damba fiirinayo familkiisu ku baraa familkaaga iyo familkiisa way isbartaan waa la xiriira ilaa gabar dhana laga guursada reerkan waa qasab waana masti in la xiriira loo tagaa la hadlaa labada famil ay isbartaan haddaad familka xataa aysa isbaran xataa ama aysa is arkin adiga nafsid ahaantaada waa inaad taqaanaa reerkiisa hooyadii inaad taqaanaa aabihii inaad taqaanaa walaashii inaad taqaanaa walaalkiis inaad taqaanaa waa masti waxbaad u dhali kartaa oolaada ilaahay idinkala siin karo ya waxaa macquul xataa haddase oolaad xataa aada ilaahayba idiin qorinba inaad isku dhashaan eeba meesha imaanin oo asna aan diyaar u ahayn ee ilaahayba aysa keenin ya walaalkiisaad adaas rabto shukaansan kartaa ma taqaanid marka waxaa qurux badan inaad ehelkiisa barato hadda ninkan wuxuu soo waday naagtiisii ayaa maqashay horaa waxaa loo dhahay qof wax ku siiyo lama helo laakiin wax kuu sheego maba la waayabo meeshaa doonto joog adduunkan ilaahay ballaariyey meesha aad doonto ka joog waa fahantay somaha meesha aad doonto ka joog cid wax kuu sheegto lama waayo wax waa la maqlaa laakiin cid wax kuma siinayso taas xisaabta ku darso laakiin heblaayo kaalbal maanta waxaasan soo maqlay waa lagula taagan yahay waa fahantay somaha waad maqlaysaa laakiin cid wax ku siiso ma helaysid maxaa kalifay Soomaali haddaan nahay halkaasaa baranbara nooga baqday waxna qof ma qaran karno waxna ma la aamusi karno waxa maqalnana waan sheegnaa dhibaatada taalo waa taa gabadhan daacada iska ahayd ilaahayba uurkeeda u dhaqay allah gacmaha u horeeyay waxa tiri waa naagta kale oo Soomaaliya joogtay ayaa maqashay ninka inuu naag guursaday ama guri kale uu yeeshay naagta Yurub soo aaday Yurub intay soo gaaran ee dhaxdan ku soo maqan tahay ayuu dhahay walaashay ayaa soo baxdayo aan biil u diraaya maskiinay haye walaashay aan biil u diraaya haye walaashay aan biil u diraaya haye haddaad adi reerkiisa aqoonin danaagtoo qabo walaashiisa kaaga guriga kugu keenaya xataa maxaa ka gala waa walaashay leeyahay dib ma jire waa faantisanaha laakiin rago idinkana dumarka aad qayaanaysaan iska daaya qayaanada waa laga qurux badan yahay daacade ku tahay waxa mees ka diidaneen wax walba hadaad u sheegan lahayd xataa aadilad abaayo aan naagaan qaba aan ka soo tagtay caruura ii heesa waa kaasa adina waa ku raba ama way kuugu qaadanaysaa ama way ku diidaysaa labadaas waa waxba uma dhaxeeyaan daaset waa laba eray kaliya ama haye ku leedahay oo way kuugu qaadanaysaa ama maya ku leedahay walaalo macaana nin naaqaba aniga ma rabay ku leedahay wax kale meesha ma soo gali karaan marka waxa qurux badan ama sembri ay fiican tahay
ama ay ku qurux badan tahay inaad qofka aad nolosha aad wada qaybsanaysaan runta iyo xaqiiqada inaad u sheegto way fiican tahay wallaahi aaday u fiican tahay runta lagama gambado laakiin beenta ma seeta dheero way lugteeda way gaaban tahay dhaxaa laga soo qabanaya dhakab waa la keenayaa waa fahanti samaha marka gabadha marka waxay tiri allahu akbar fiir abuu macaano wax ma ku sheegaa ha walaashaa i barbar tan hadda soo socoto oo nooy ma rabtaba jidka kusoo jirto halay baro waa inaad i bartaa mayo yarisaan ku baraa naagtiisa qof bari karaa waa naagtiisa qofku soo waday waa may kuma baraayo dhahay mana ku bari karo saan ku baraa war hay dhareerkaagii i bar may kuma baraayo bal waxaas ilaaha idinku dhaariyey asxaabe bal waxaas wax loo dul qaadan kara ma tahay wax loo dul qaadan kara ma yihiin idinkaan idin weydiinayaay wax loo adkaysan kara ma tahay waxay tiri hadda naag markay xanaaqda xoogeeda waa i fursamaha waa wada naqaanaa waxay tiri wax ma kuu sheegaa nino ama reerkaagii i baray tiri ya ama nin dan i heli igama lihide iska kay dalaaq naa wuxuu yiri meel macaa bahasha kasoo rido aniga reer kuma baraaye ya dalaaqitaankaa ii dhow inaan ku furo ayaaba ii fudud baani intaan reerkeena ku bari lahaa inaan ku furaaba ii fududoo yiri because gabadhan hadda wax walbo raaliye ku ahayd way ugu faraxsaneed qof jecel way jecleed noloshiisa jeceshahay mustaqbalkiisa jeceshahay in ilaahay wada noolaadaane uud badan isku dhalaanay jeceshahay meel wada deganaadaane ku faraxsaneed waxay tiri wixii way soo ogaatay oo way fahantay beentiisi laakiin haddoo dhihi lahaa abaayo macaanto isaas wax ma jiraan ani waa kaa qariyey rabitaan adi aan ku rabo aan waxaan kaaga qariyey waana ku jeclahay haddaan dumar nahay maxaa la dhahay dumarka maxaa la dhahay dadka maamooyinkeen waaweyn maxay dhaheen dumarka waa caruur iska caga weynay dhaheen samaha waa caruur xabad nacnaca haddaa u keentaa lahay oo aad ku sasabato way ogolaanaysaa marka oo dhihi lahay abaayo iga raali noqo qaladkan waa galay laakiin mar kale dad uma noqonayo waxaan way dhaceen qurxey iga raali noqo gafka marka lama sameynayo way ogolaaneed oo way qaadan lahayd wuxuu yiri abaayo soo dhawo aniga haddii wuxuu dhahay aad reerkiina i bar ama i fur ee sheekada tuhoo yiri bahasha furitaanka la dhaho aaba ani iga dhow ee dhab dhuhuu yiri ya ninkaas muxuu dhaxlay muxuu saqaatay horta dumarkeena way il kullihiin qaarkeen xoog xaq inaa ka gashana waa laga qurux badan yahay qofku jecel garabkaaga taagnaa hiil iyo hoog kula taagnaa wax walba ku siinaay lacagay soo shaqaysay soo dhidida faraqa kugu shubaysay ku siinaysay yeela abuu sameysa abuu waxaa rabta xabiibi sameyso baby sidaa rabtayee ya aad ku haysay bal maanta maxaad ka haysaa baby beelaha baa kaasi wada cilaw kaaga dhaqaaqay naa raxmadi furan haddii lagu fura raxmadi furan abaayo ma fahanti ya raxmadi furan mid kaloo kheyr qabo duceysano reerkiisa usoo duceeyo reerkiisa ku baro oo farxad aad la qaadato insha allah cabdi indhalaaba iridii ilaahay kaaga soo gelinayo ani waan kuu duceeyey mid kale oo duceysan maxay dhahaan dadkii maamooyinkeen maxay dhahaan cabdi indhalaaba ah ayaa iridii ilaahay kaaga soo gelinayo waa mid aana xumaato iyo wax qari iyo waxaan ka dhuume iyo waxaan way qaldan yihiina ka carar iyo aana aqoonin oo waxaas aana jeclaynba oo qoftiisa uu helo si nasabnimo ah gobnimo ah qurux badan farxad nolol qurux badan aad isla gashaan ilaahay kuu keenayo abaayo macaanto asxaabay abaayo idinkana komitiga ugu soo qoro usoo duceeya in ilaahay boogteeda u dhayo laabteeda ilaahay u qaboojiyo ninkaas ilaahaba ka saaraybo la-ano nin hadartaan ayagoo isku cusub oo muddo un wada joogo qayaanay biritoole wax kalaa laga sugi lahaa natiijo kale lagama sugi lahayn marka waxaa idin leeyahaa asxaabteeda aad ku jeclahay dhammaantiinba aad iyo aad idiin wada jeclahay waa anigoo shamse ah koomta qurux badan abaayo u reeba u duceeya ya
fikradiina u reeba waxay tahay waxa aad sameyn hadda kuugu dhacdo abaaya adiga i daawanayo maxaa sameyn lahayd talada aa heeso abaaya la soo qaybso committee-ga ugu reeb committee qurux badan dee dhammaanteena waxaan idin leeyahay jannada noo balana waxaan idinkaaga sii tegayaa fi amaanillah.